asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhawada channelkeena abwaandaariyo iyo qaybta koowaad ee filimkeena waayaha balse saaxiib marka hore waxaan ka codsanay inaad muuqaalka la garayso oo channelkeena abwaandaariyana subscribe taas soo saarto maadsani ugu horreyntii labadan qoys waa laba qoys oo ilma adeer ah balse waxaa dhex taalla cadaawad aad u daran ku darso labada qoys mid ka mid a waa faqayriin halka kuwa kalena ay yihiin taajiriin waana kuwa keenay inay fogeeyaan ilma adeeradood ugu horreyntii waxaan aragnaa gabadh danyar oo lagu magacaabo safeer kana tirsan qoyska danyarta ah waxay lahayd xanuunka suuxdinta waxaana habeenada ka mid a ku sooxaysaa guriga hortiisa kadibna waxaa arkaysa walaasheeda ka weyn oo lagu magacaabo saabirin waxaa sidoo kale soo cararay walaalkooda ugu weyn ee siyaad waxaanay siinayaan dawooyinkii dhakhtarka u soo qoray tanna waa maamadooda dhashay saddexdoodaba waxaana lagu magacaabaa ruun dhinaca kalena gabadhan oo lagu magacaabo hodan kana tirsan qoyska aadka u xun balse iyadoo laba mid ahaa qoyskooda waxaanay mar walba la jirtaa qoyskan dhibaataysan kadibna iyadoo meel iska taagan waxaa soo hormaraya ninka sakhraanka ah ee dhacdhacaya iyaduna aad ba uga naxaysaa sababtuna ay tahay inuu yahay adeerkeed ahna midka aabbaha u ah qoyska dhibaataysan siduu usii socdana wuxuu u tagayaa gabadh qaad iibinaysa iyaduna way u diidaysaa maadaama ay ku lahayd deyn aad u fara badan waxaanu soo saaraya taleefankiisii gacanta ayaanu ka saaraya balse waxay ku odhanaysaa kani $80 ma dhamme waxaad ogaataa inaan kugu lahay $40 oo kale waxaanay siinaysaa qaadkii haddiinu nimaadno dhinaca kale siyaad waxaa walaashiisa birin weydiinayaa baryahan jaamacaddi ma tagta waxaanay ugu jawaabaysaa maya markuu weydiiyey sababtana waxay u sheegaysaa in lacagtiisi misterka lagu soo eriyey isaguna wuxuu ku odhanayaa miyaanu ku odhan aniga bixinaya balse waxay ku jawaabaysaa waxaan rabaa inaan iskaga baxo kadibna aan shaqaysto si aan adiga kuu caawiyo balse siyaad arrintaa u ka cadhoonaya waxaana ku odhanaya aniga adiga taqaanaa lacagta jaamacadda ee waana hadda jaamacadda tagtaa dhinaca kalena hodan markay guriga timaado waxay walaasheed ku odhanaysaa waxaan aad uga warwarsanahay siyaad maadaama uu taleefanka iga qaban waayey balse iyadana way ku gacan saydhaysaa waxaana ku odhanaysaa horta ninkanaad mar walba ka warwarto miyaad jeceshahay dhinaca kalena odaygii waxuu kusoo labanaya gurigiisii xilli saqdhaxaa isagoo dhacdhacaya welibana ku dhawaaqaya ereyga ruunay kadibna waxaa soo baxaysa run waxaana ka horgeynayaa kaadhkan taleefankaaga ii geli kaygii waan iibiyey iyadana way ku canaananaysaa waxaanay ku odhanaysaa habeen kasta oo qaybateeda ka mid ayaad qaad iyo khamri ku cunaysaa isaguna intuu lug iyo gacantaaga ayuu dharbaaxa u dhiibaya kadibna waxaa soo baxaya soo ordaya siyaad iyo walaashiisa saabiriin balse waxay arkayaan qofkan inuu aabahood yahay siyaadna waxaa bii ku odhanayaa horta maxaad habeen walba hooyo gacan ugu qaadaa habeen damba hooyo gacan ma qaadi kartid balse isagii ayuu u dhiibayaa siyaadna wuu isdejinaya kadibna intuu aabii garabka qabta ayuu seexinaya isaguna wuu kala dhacayaa maadaama uu dirqa ku socday siyaad ayaana kabaha ka bixinaya dhinac kale haddaynu eegno hodana la joogta aabaheeda xuseen iyo walaashiisa saada waa ay iska sheekaysanayeen balse hodan ayaa aabaheed ku odhanaysaa aabba maanta waxaan arkay ma ogtahay marka uu weydiiyena waxay ku odhanaysaa waxaan arkay adeerkeen oo dhacdhacaya oo sakhraansan kadib isaguna uu isdiidsinaya waxaanu ku odhanaya adeerkaa waa kee iyaduna runta ayuu sheegaysaa waxaanay ku odhanaysaa haddee adeer ismaaciil waxaanu ku odhanayaa miyaanu ku jaradu ku odhan ninkaa sheegan in adeerkeen maahane ehelkiisa iyo agagaarkiisa toona idinku marki karo kadibna wuu ka kacayaa kadibna walaasheed ayaa ku canaananaysa waxay samaysay waxaanay ku odhanaysaa maxaad aaba dhikarka ugu keenaysaa hase ahaatee hodan waxay ku odhanaysaa ma rabin inaan dhikarka u kiciyo balse aabay waxa uu samaynaya kuma raacsani kadibna walaasheedii kalena waa iskaga kacaysaa hodanna waxay go'aansanaysaa inay aabaheed soo raali geliso balse waxay u tegaysaa isagoo dhiikarkii ku kacay kadibna waxay u keenaysaa kelikii dhiikarka waxaanay ka dalbanaysaa cafis kadib marka uu seexdana waa iskaga imanaysaa dhinaca kalena walaasheeda sacdoo guriga iska joogta waxaa soo wacaya eegaskeedii waxaana uu sheegaya inuu taagan yahay guriga hortiisa kadibna waxay go'aansanaysaa inay u tagto hodanna intii walaasheed dibadda ku maqnayd waxay usoo baxaysaa dibadda waxaana wacaysaa siyaad kadib waxay weydiinaysaa sababta mawlka uga qabanaayo waxaana uu sheegaya inay xanuunsanaysay walaashii safaya kadibna waxay u sheegaysaa inay aabaheed isku dhaceen sababtuna ay tahay isaga iyo qoyskiisa waxay sidoo kale usii raacinaysaa anigoo aabahay kuma raacsani waxa uu samaynayo waana ku qaldan yahay balse hal mar ayay xagga dambe eegaysaa waxaana arkaysaa aabaheed oo daba taagan intaa kadib wixii dhacay waxaanu ku arki doonaa qaybta labaad ee filimka fadlan kusoo beeri channelkan abwaandaariye mahadsanid